mukhtaar garaad muraane gurigiisii waa la duqeeyo waa la bartilmaameedsaday kaygana saakaa ugu dambayso wakaa madfici hoobiyihii lagu soo dhuftay guriga garaad jaamac garaad ismaaciilla waxaa laygu yidhi ilaaladiisii qayb baa ku dhaawacantay bismi illah alxamdulilah rabbilcaalamiin suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan rabaa inaan maanta in yar oo warbixina ka bixiyo xaaladda magaalada laascaanood iyadoo ay taariikhdu tahay 21 maalin talaada saaka salaadii subax magaalada waxaa lagu soo qaaday weerar qorshaysan oo dhowr geesood laga soo qaaday haddeer ay saacaddu tahay 10kii 5tii buu bilowday dagaalku sidii buu socdaa dagaalka waxaa soo qaaday ciddii soo qaadi jirtay nimankii taliskoodu gooja cadde ahaa ee hargeysa laga maamulayay waxaan rabaa marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh marka xigtana waxaa mahad leh dhalinyarada reer SSC ee dhulkoodii lagu soo doontay ee guryahoodii loogu yimi ee madaafiicda lagu garaacayo bidooni sabab oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo maalkoodaba difaacanaya waan idin garab taaganahay waadna ku mahadsantihiin waadna guuleysanaysaan insha Allah ilaahayna ha idin garab galo taayintaasaan leeyahay waxaan rabaa inaan qodob iraahdo niman isimaa oo dhaqanku meelay joogaan ba ixtiraam bay kala mudan yihiin oo yiri waxaan u soo soconaa laascaanood waxaan rabaa kelmad inaan halkan u mariyo laascaanood maalintii 16aad ayay waxay marti gelinaysaa weerar joogta iyo gantaalo iyo madaafiic iyo xasuuq iyo gumaad waxaan filayaa intaa inaad garan kartaan cidda ay kaga imaanayso iyo xaaladda laascaanood ku sugan tahay iyo waajibka aad qaadan kartaan intaa inaad garan kartaan baan u yeeyin ka badanba raggii aad ismiciina ahaa ee dhaqanka reer Hargeysa ama gobollada waqooyi ahaa baraato baanu baaqoodii dhageysanay waxay ku hadleen hadalkii ay xaq u lahaayeen waxayna arkeen xaaladda meesha taalla markay xaaladda meesha taalla dirseena wixii ay waajibka u lahaayeen bay kaga hadleen inayan ahayn xaalad maanta laascaanood la tegi karo inay laascaanood xaaladda ay ku sugan tahay xaalad siiriyoosa tahay in dagaalku uu kaga socdo Hargeysa in ayan waxba ka qaban karin waxaan filayaa raggaa iyo idinku isku dhaqana waa tihiin isku reera waa tihiin ama reeraba kala noqda inta ay arkaan inay arki waayeen baan filayaa maanta laascaanood waxaa imaan kara ciidan amisooma oo xabaddaa joojiya waxaan talageliyeyda ku siin lahaa xabaddani waxay ka soo baxaysaa oo ka soo burqanaysaa madaxtooyada Hargeysa aadna joogtaan una dhalateen meesha wax laga qaban karo ma aha dadka madaafiicdu ku socoto ee la gumaadayo ee laascaanood joogta ee maalintii 16aad xasuuqa ku socdo ma aha waa Hargeysa meesha wax laga qaban karo ee xabadda laga joojin karaa nin baa waxaa laga sheegay ilaahow wuu yiri sida tani hadday xanaga tahayna hana cadaabin hadday aqoon naga tahayna hana rugin waxaan idin oran lahaa doorka aad saaka qaadan kartaan waxaa weeye inaad Hargeysa wax ka qabataan kala dadka madaafiicdu ku dhacaso iyo taliska gooja cadde cid gurmadu ah oo u timaada laakiinse wax kale oo saaka wax ka qaban kara halkan ma jiro ilaahay mooyaan iyo ciidan amisomaho yimaada ilmaade rayaalow
ما filayo inta inaad garan weydeen caqli cayb ay waxay nagu noqonaysaa iyada oo maalintii 16aad xabadi socoto tasaaka socota ay ugu adag tahay inaad tirahdaan laascaanood baanu erge u teganaa oo intaas aad joogteen Hargeysa oo meeshii laga soo amrayay madaafiicda iyo dagaalka iyo weerarka magaalada ka socda ay tahay oo aydin waxba ka qaban taa intaasaan oran lahaa isimada laascaanood jooga waxaan hubaa garaad Cabdilaahi garaad Saleebaan gurigiisii waa dumay oo waa la duqeeyay garaad ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahina gurigiisii waa la duqeeyay oo wuu dumay oo waa la bartilmaameedsaday garaad jaamac garaad Cayna gurigiisii waa la duqeeyay oo waa la bartilmaameedsaday garaad Mukhtaar garaad Buraale gurigiisii waa la duqeeyay oo waa la bartilmaameedsaday kaygana saaka ugu dambeysay oo wakaa madfici hoobiyihii lagu soo dhuftay guriga garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa lagu yiri ilaaladiisii qayb baa ku dhaawacantay annagoo intaa qabnaa waanuna u dulleenahay sharaftayada iyo cirdigeeyana ilaashana waanuna isdifaacana kana biqi mayno nana cabsi gelimayso madaafyadana ku soo garaacaya laakiinse idinku ha garan waayina doorka aad leedihiin ilmaadareyaalow nimanka isimada hadlayay anoo idin ixtiraamaya ama nimankii afka reer Sheekh Isxaaq ku hadlayay garxijisba ha u badnaadeen doorkoodii qaat oo la jooga ama haddii aad systemka kaga dhowdihiin inta aad u tagtaan waxaad tiraahdaan qabta oo ka joojid magaalada madaafiicda iyo dagaalka iyo weerarka oo ka saar labadaa wuxuu u dhaxeeyaa caqli cayb ay noqonaysaa wabillahi tawfiiq